Asalaamu calaykum. Waxaan rajaynayaa inaad fiican tihiin meel walbood iga daawanaysaan. Maanta waxaan idiin wadaa qisada wiil yar oo 2 jir ah. Xayirtay gelina weyday caqliga guud ahaanba aadamaha dunida ku nool, gaar ahaana Mareykanka. Aan bilaabo. Nin lagu magacaabo Bruce Leninger iyo xaaskiisa oo la yiraahdo Andrea ayaa waxay deganaayeen magaalada Lafayette ee koonfurta gobolka Louisiana dalkaasi Mareykanka. Waxay dhaleen wiil yar oo la yiraahdo James wuxuu dhashay 10kii bishii Afraad 1998. James inta uu ka soo gaadhayay 2 sano wuxuu ahaa ilmo yar oo dabiici ah. Caafimaadkiisa wax walba ay yihiin dabiici ama caadi. 2 sano markuu dhaafay wuxuu bilaabay habeenkii inuu qarwo, isagoo ku qarwaya diyaaraddu way ololeysaa ama way gubanaysaa iyo ninkii yaraa meel uu ka baxa ma lahan. Marka habeenkii u horeysay qol buu kaligii seexan jiray. Habeenkii u horeysay hooyadii baa waxay maqashay qarowga qayladiisa. Markay u timidna waxay maqashay wiilkeedu inuu ku qarwayo diyaaraddu way ololeysaa iyo ninkii yaraa meel uu ka baxa ma laha. Hurdaday ka kicisay kadibna way seexisay. Habeenka wixii ka dambeysay waxa uu bilowday musalsal qaraw ah. Dhowrkii habeenba ama isbuuciiba 2-3 mar inuu qarwo, kuna qarwo isla qarawgaas iyo erayadaas uu leeyahay inta uu jiifo. Muddo markii ay sidaas socotay ayaa hooyadii waxay geysay dhakhtarka si xaaladda wiilkeeda ay u ogaatay iyo sababta keenaysa qarawgaas. Markii hore waxay moodeysay qaraw iska caadi ah, ilmaha yar oo iska qarwaan mararka qaar, xitaa dadka waaweyn way qarwaan, waa caadi. Marka dhakhtaradda waxay ku tiri kaligii qol ha seexinina, la seexda kana warqaba, waxa laga yaabaa inuu iska tago. Maalin maalmaha ka mid ah James iyo hooyadii way soo raaceen, waxayna yimaadeen dukaanka lagu gado alaabayda ciyaalku ku ciyaaraan. Marka hooyadii waxay aragtay diyaarad ay wax gadaal kaga rakiban yihiin. Marka wiilkeeda waxay ku tiri diyaaraddan hooyo bamba ku dhagan. Waa ilmo yar oo 2 sano iyo wax jira. Marka wuxuu ku yiri bam ma aha, intuu si la yaab leh hooyadii u fiiriyay ee waa drop tank ama Carabiga wax lagu yiraahdo khazaan isqaad. Soomaali waxay noqonaysaa taangi shidaal oo taangiga shidaalka ee diyaaradda aan ahayn ee ka baxsan. Kadibna lagu dhajiyo diyaaradda banaankeeda lagu rakibo, inta badan loo isticmaalo ama loo adeegsado diyaaradaha dagaalka. Hooyadii way la yaabtay, way iska soo noqotay iyadoo u maleynaysa inuu wiilka yar waxa iska yiri waxayna ogaatay wiilka yar hadalka uu yiri inuu dhab tahay oo waxaan la yiraahdo drop tank. Way la yaabtay, waxay ku tiri ilmaha yar ee wax si loo qoro aan aqoon, si loo akhriyana aan aqoon, sidoo ku garan karaa macluumaadka inta leeg. Maalinkii dambe isaga iyo hooyadii iyo aabihii waxay soo aadeen madxafka la dhigo waxyaabaha qadiimka ah ama taariikhiga ah. Ka yarka ah waxa laga kari waayay oo diiday inuu ka dhaqaaqaba dhinaca ama qaybta dagaalkii labaad ee adduunka waxyaabihii lagu galay ama taariikhda ahaa ay yaalaan. Markii dambe gurigu dib ugu soo noqday. Maalin dambe haddana hooyadii iyo isaga iyo aabihii oo safar ah baa airport-ka marka la joogay garoonka diyaaradda wuxuu bilaabay ka yari inuu diyaaradaha uu maaragtay ila tijaabiyo diyaaradda sida duuliyuhu uu sameeyay ka hor inta uusan diyaaradda duulin, inuu ogaado diyaaradda inay wax ka maqan yihiin, wax ka khaldan yihiin, xaaladeedu inay okay tahay, wax walba inay sidii loo baahnaa ay yihiin. Wuxuu bilaabay ka yar inuu jeegreeyo diyaaradda meesha diyaaradaha taagnaa ka mid ahayd. Taana waxay ku dhalisay waalidkiis la yaab. Intaa wixii ka dambeysay James wuxuu bilaabay inuu ku ziyaado qarawgii. Habeen walba inuu qarwo, kuna qarwo isla waxa uu ku qarwo oo ah diyaaraddii way burburtay iyo ninkii yaraa meel uu ka baxa ma laha. Habeenada ka mid ah wuxuu bilaabay hooyadii iyo aabihii oo la jiifa inuu qarwo. Kadibna hooyadii waxay weydiisay su'aal ah waa kuma ninka yarka ah. Wuxuu ku yiri waa aniga. Waxa la yiraahdaa James 3. Waxaan ahay duuliye diyaaradaha dagaalka. Waxaan ka qayb qaatay dagaalkii labaad ee adduunka. Marka waxay ku tiri diyaaraddaada maxaa ku dhacay? Wuu jiifaa wiilka yar wuu qarwayaa. Waxay ku tiri wuxuu ugu jawaabay diyaaradaydii waa la soo riday oo way gubatay. Waxay ku tiri yaa diyaaraddaada soo riday? Wuxuu ku yiri Jabaaniiska. Waxay ku tiri diyaaraddaadu halkay ka timid markii hore? Aabihii baa weydiiyay diyaaraddaadu markii hore halkay ka timid? Wuxuu ku yiri diyaaraddeedu waxay ka timid oo ka duushay markii horeba markab ay diyaaradaha dagaalku ka duuli jireen oo badweynta yaala. Kadibna waxay u sii jeeday xagga iyo Jabaan. Marka Jabaaniiska soo riday diyaaraddeedii waxayna ku dhacday badda. Waan isku dayay inaan ka baxo intaan markay soo rideen diyaaradda, laakiin way ii suurtagal weyday inaan ka baxo. Wado walba waan sameeyay si aan uga baxo diyaaradda uga badbaado, laakiin waan ka badbaadi waayay.
hooyadii iyo aabihii marka way yaabeen intaa wixii ka dambeysay aad bay u yaabeen. Waagu markuu baryay ayeeydiis wiilka yar ayeeydii baa waxay tiri wiilka yarka ah waxay u badan tahay qof dhintay naftiisii inay soo gashay. Marka hooyadii waxay ku tiri reerku waxay ahaayeen reer Kiristaana oo diinta aad u aaminsan. Diintooduna ma qabto naf qof baa qof kale soo gashay ma qabto. Mana aaminsan iyagu khuraafaadkaas. Marka hooyadii waxay ku tiri khuraafaad weeye waxaas anigu ma aaminsanayo wiilkayga wax kala jira marka dhakhtar baan geynayaa si uu u caafimaado oo dabiib u helo. Hooyadii waxay aaday iyadoo isdiidsiinaysa khuraafaadka wiilkeeda lagu sheegay si ay dabiib ugu hesho dhakhtarad dalka Mareykanka waqtigaas caan ka ahayd oo ku takhasustay cilmi nafsiga si gaarana ciyaalka. Dhakhtaradaasi wiilkii yara u geysay waxay ku tiri wiilkayga xaaladiisu waa sidaa. Markay uga warantay kadib waxay ku tiri wiilkaaga ma ahan qofkii ugu horeeyay ee xaaladani ku dhacda ama aan la kulmo ama aan arko. Marka way dhacdaa qof dhintay naftiisu inay qof kale soo gasho gaar ahaan haddii qofka dhintay bay tiri loo dilay qaab naxariis darro ah. Waxaa dhacda naftiisu inay qof kale soo gasho. Marka waxay tiri waxa kaliya wiilkiinu ku dawoobi karaya waxay tahay kow marka hore inaad ammaan siisaan xasilooni uu agtiina ku dareemo. Wax walba uu idiin sheegana inaad ka dhagaysataan ka wargurtaan oo waraysataan ninkan uu sheeganaya inuu yahay noloshiisii hore riyooyinkiisii wax walba ka wargura. Waa wadada ugu munaasabsan ee wiilkiinu naftan ku jirtay ay kaga bixi karayso ama mar labaad ugu soo noqon karayo caadi. Hooyadii way iska soo noqotay gurigay ku soo noqotay aabihiina wuu diiday gabi ahaanba inuu aamino wiilkiisa waxaa soo gashay naf qof dhintay. Marka wuxuu bilaabay hadal walba oo wiilkiisu yiraahdo inuu baaritaan ku sameeyo. Wax walba uu baaritaan ku sameeyana waxay noqdaan run sida wiilka yar uu u sheegay. Wuxuu ku yiri waxaa jira 3 nin oo magacyadooda u sheegay oo ahaa duuliyayaal ay isaga saaxiibo ahaayeen. Kadibna isaga inta aan diyaaradiisa la soo ridin iyaga la dilay oo iyagana dhintay. 3 nin buu soo ogaaday wuxuuna ogaaday 3 nin dagaalka labaad ee adduunka inay ka qayb qaateen kadibna ay dagaalka ku dhinteen. Wuxuu u sheegay ka yaro diyaaradii uu saarnaa magaceeda iyo markabkii ay ka duushay iyo meeshii ay ku burburtay intaba. Aabihii wuxuu bilaabay inuu soo ogaado waxayna noqdeen wax walba uu wiilka yar sheegay xaqiiqa. Diyaaradda magaceeda baa xoogaa isdaba martay. Wuxuu sheegay diyaaradda magac kale laakiin diyaaraddu magaca ma ahayn laakiin way dhacday in ninka la yiraahdo duuliyaha lagu magacaabo James Houston oo ah wiilkan yar ninka uu sheeganayo wuxuu ahaa duuliye dagaalkii labaad ee adduunka ka qayb qaatay kuna dhintay diyaaradiisii ku burburtay wuxuuna duulin jiray diyaaradaha dagaalka si gaar ah. Marka wuxuu ku yiri cid kale oo garanaysid ma jirtaa. Wuxuu yiri waxaa jira nin saaxiibkaya oo la yiraahdo magacaas wuxuuna ahaa caawiye ama kaaliye duuliyaha diyaaradda. Diyaaradda duuliye kaliya ma duuliyo. Diyaarad walba oo duulaysa waa inay yeelato 1 ilaa 2 caawiye ama kaaliye duuliye. Markuu soo ogaadayna xaqiiqay noqotay inuu ninkaasi jiray laakiin uu dhintay. James wixii ka dambeysay intaa wuxuu bilaabay inuu jeclaado oo mar walba u dhawaado daawado ku ciyaaro sameeyo ka fikiro ku riyoodo gaar ahaan diyaaradaha dagaalka si gaar ana diyaaradihii dagaalkii labaad ee adduunka lagu galay. TV-ga haduu daawanayo waxa uu ka daawadaa maalinkii dambe aabihii iyo hooyadii waxay arkeen isagoo kitaab haya buug haya oo akhrinaya saa u fiirinaya mana yaqaan wiilka yar si wax loo akhriyo iyo si loo qoro midna maxay lama ba uusan gaarin waa 2 sano iyo wax buu jiraa. Way la yaabeen waxay ku dhaheen maxaad ka akhrinaysaa meesha. Wuxuu ku yiri waxaan fiirinayaa meeshii badii ay diyaaradaydu ku dhacday. Cajiib. Maalinkii dambe haddana ka yari wuxuu sawiray diyaarad dagaal oo ololeysa. Wuxuu ku hoos saxiixay James 3. Marka James 3 wax walba uu qoro ku hoos saxiixi jiray. James 3 waxaa la yiraahdaa ninkii duuliyihii dagaalkii labaad ee adduunka ku dhintay magaciisa saxda waxaa la yiraahdaa James Houston laakiin waxaa lagu naanaysi jiray James 3 maxaa yeelay James kala meesha kala shaqayn jiray. Marka si loo kala garto James 1 2 3 marka isagu wuxuu ahaa James 3 saas darteed wiilka yar meesha ugu saxiixay James 3 aabihii wuu la yaabay. Ka yar diyaarad walba uu ku ciyaarayo oo guriga u taala wuxuu ka jaraa inta hore diyaaradda marwaxadu ku taalo marwaxada wareegta inta hore ay ku taalo buu ka jaraa diyaarad walba uu arkaba. Hadduu sawiro xataa diyaaradda uu ka jaraa inta hore. Anoo dib idinka sharaxi doona sababta ku kaliftay inuu ka jaro diyaaradda inta hore.
wuxuu u sheegay aabihii inuu jiro nin dagaalkii labaad ee adduunka ka qayb qaatay isagana oo ka mid ahaa dadkii ka shaqaynayay markabkan diyaaraduhu ay ka duulayeen. aabihii wuxuu bilaabay ninkii inuu raadiyo, kadibna nasiib wanaag ninkii wuxuu noqday oday waayeelo oo nool. odaygii buu la sheekaystay, wuxuu ku yidhi diyaaradan James ninka la yidhaahdo markii ay dhacaysay waan arkayay, maxaa yeelay markii wuxuu yidhi Jabaaniisku ay kusoo tuureen madfac kusoo tuureen diyaaradda xagga hore kaga dhacday, intaa hore ee marwaxadii intaas bay ka burburtay, kadibna diyaaraddu badday ku dhacday way olashay, kadibna badday ku dhacday. sababtaas waxaa weeyaan sababta wiilka yari uu markasta diyaarad uu sawirayo ama uu ku ciyaarayo uu intaa hore diyaaradda uga jaro, maxaa yeelay diyaaraddiisa intaa hore laga jaray markii uu dhacaysay. isaga ma aha, laakiin sida la sheegaya naftan soo gashay ee ninkii duuliyaha ahaa. taasoo dhantii ka yaabka badneyd waxay ahayd marka ay hooyadii raadisay James-kii dhintay reerkiisii, kadibna waxay heshay nasiib wanaag walaashiis isaga ka weyn oo habar waayeel waqtigaa ahayd 84 sano jirtay. islaantii bay heshay, kadibna waxay kaxaysay wiilkeedii iyo ninkeedii, islaantii bay u geysay. islaanta waxaa la yidhaahdaa Anne. ka yar markii uu sida u arkay islaanta wuxuu ugu wacay Annie, wuuna ku soo orday, wuxuu siiyey hab, wuxuu ku yidhi aabba ka waran, waxaa jirtay walaashay naga weyn. wuxuu yidhi aniga waxaa 4 sano iga weyn Annie waxaa jirtay walaashay kale oo iyada 4 sano ka sii weyn. waxaa jiray aabe oo cabbi jiray khamrida aad u cabbi jiray, marka uu khamri cabana waxbuu jajabin jiray guriga iyo alaabta taalla iyo waxba uma aaba yeeli jirin. wuxuuna doonayay inuu aado meelaha dadka lagu xanaaneeyo noocaas oo kaleeta ah ama lagu baxnaaniyo. way yaabtay naagta aan lagu magacaabay ay walaalaha ahaayeen ee ninka la yidhaahdo James. waxay tiri inta uu sheegayba waa sax. ta aan la yaabay waxay tahay wiilkayru markuu hab isiiyey iyo qaabku ila hadlayay, waxaan dareemay mar labaad inuu walaalkay dunida dib ugu soo noqday. qofka kaliya ee magaca Annie iigu wici jirayna wuxuu ahaa walaalkay. xaalad dadku meesha ay Annie iga dhahaan isagu Annie buu iigu wici jiray. marka waxay tiri waa la yaab macluumaad uu walaalkay kaliya ogaa siduu ilmaha yari ku ogaan karaa, sideen ku dareemi karaa dareenka intaa la eg inuu walaalkay mar labaad dib iigu soo noqday. yaab la yaab ama kaag ashqaraar afkala hays dhabana hays, kelmad walba oo yaab lagu cabira waxay qabsatay marka wiilka yari uu hooyadii iyo aabihii ku yidhi markaad arooska ahaydeen hoteelkii aad joogteen xeebtiisaan markii ugu horreysay idinku arkay. waana run oo hoteelka ka yari sheegay waa hoteelka ay u aadeen labadan waalid markay isguursadeen honeymoonka ama bisha malabka. xeebta ninkan naftiisu ka yari soo gashay sida la leeyahay wuxuu kor ka wiidaysanaya, naftiisu ka wiidaysanaysay baa la yidhi qofkii uu hooyadii aabba ka dhigan lahaa waqtiga iyada ah. markii ay kasoo noqdeen hoteelkaas 5 isbuuc kadibna hooyadii waxay uur yeelatay isaga. marka waalidkii way yaabeen. filimaanta indha yarta ciday doonaanba ha ahaadaan iyo hindida markaad daawanaysid inta ugu badan iyo musalsalaadkooda waxaad ku aragtaa qof naftiibaa qof kale soo gashay, qof naftiibaa xayawaan soo gashay. marka naf baa naf soo gashay iyo naf baa wax soo gashay waxaa loo qaybiyaa 3 qaybood. qof naftii baa waxay dhintay baa waxay gashay qof kale soo gashay, waa sida yidhaahdaan. ta koobaad. ta labaadina qof dhintay naftiis baa waxay soo gashaa xayawaan, yaanyuur, libaax, adeer rabaan quraanjo, xayawaan soo gashay. tan saddexaadna waxay tahay qof dhintay naftii baa waxay soo gashaa walxaha aan noolayn ama waxyaabaha qalalan ee nafta lahayn bay soo gashaa. waxaad maqlaysaa qof naftii baa waxay gashay gurigaasu qofkaasi ka dhex hadlaa, isagaa degan, ama webi bay gashay ama geed bay gashay, waxay rabaan bay sheegaan. marka inagu ka muslim ahaan dad muslima ahaan ma aaminsanin waxa la yidhaahdo naf dhimatay baa dunida kusoo noqotaa. kumana jirta qur-aanka iyo diinta midna naf dhimatay oo dunida dib ugu soo noqota. maxaa yeelay haddii ay jiri lahayd qof dhintay naftiisu jaanis ay dunida mar labaad dib ugu soo noqoto, xayawaan ha soo gasho hadday rabto microfonka lagu hadlaba hadday rabto ha soo gasho. wuxuu heli lahaa qofkaasi jaanis uu ku toobad keeno oo qof ilaahay ugu soo noqdo, soo maaha. fircoon baa soo noqon lahaa naftiisu intay soo noqoto maaragta, hadday doonto buuraha intay soo gasho buu mar labaad maaragtay toobad keeni lahaa oo jaaniska heli lahaa. marka ma jirta wax la yidhaahdo mana aaminsanin ka muslim ahaan naf baa naf soo gashay. laakiin waxaa jira dadka qaar ama diimaha qaar aaminsan naf baa naf kale soo gasha. waxayna yidhaahdaan qofka dhintay haddii si xun loo dilo ama ay jirto riyooyin uu lahaa qofkaasi, waa khuraafaadka isugu sheekeeyaane, waxay u badan tahay naftaasi inay dib usoo noqoto oo qof kale soo gasho. shar gudban shaydaan xijaaban.
ugu dambeyntii wiilkii yaraa iyo hooyadii iyo aabihii way israaceen waxayna aadeen meeshii ay diyaaradda ku dhacday iyagoo in badan maaragtay caawinay wiilkoodu inuu noloshiisii hore uga sheekeeyo waxyaabihii ka dhex guuxayo dhan inay ka dhageystaan kadibna waxay isu raaceen meeshii diyaaradda ku dhacday markii uu tagay meeshii ay diyaaradda ku dhacday wixii ka dambeysay halka uu markii hore ka qarwi jiray wuxuu bilaabay inuu habeenkii marmarka qaar iska ooyo kale kadibna wuu ka caafimaaday wixii ku dhex jiray iyo shaydaankii iyo jinnigii iyo insigii iyo wuxuu doonaba ha ahaado wixii ku jiray way ka tageen wuxuu noqday wiil caadi iyo dabiiciya iyadoo la sheego inay aada iskugu eg yihiin Jameskii dhintay iyo Jameskan yarka ah ay jirto inay 99% la dhihi karo way isku eg yihiin muuqaal ahaan marka wuxuu ku dhintay da'da 21 jir duuliyihii diyaaradaha dagaalka wiilkan yar markuu 21 sano jiro iyo 22 kani markuu jiro sawirkiisa waan soo dhigayaaye aad bay iskugu eg yihiin hadaad fiirisid laakiin waa laba qof oo kala duwan hadana wiilkii iyo hooyadii iyo aabihii marka wiilkoodii u caafimaaday waxay degan yihiin hadda isla magaaladii ay hore u deganaayeen isagoo wiilka yar in badan ka dheeraado indhaha caalamka iyo kaamirooyinka iyo warbaahintan saa u yaacaysa maxaa yeelay ma doonayo maadaama caan noqday waxaa laga sameeyey hooyadii aabihii ay ka qoreen buug waxaa kaloo laga sameeyey filin isagu laakiin wuxuu jecel yahay inuu helo nolol degan oo caadi ah oo maaragtay uu ugu noolaan karo sida dadka dabiiciga caadiga ma doonayo in noloshiisa maaragtay indhaha caalamku ay sidaa usoo eegaan oo lagu soo jeesto kama dambays halkan haddaan isla soo gaarnay oo sheekadan dhamaysatay waan kaaga mahadcelinayaa muuqaalka haddaad ka heshay suulka saar si aad noogu soo biirto subscribe taabo wixii fikir iyo ra'yi isweydaarsiya ama aad jeceshahay channelkan inaad ka aragto qaybta hoose ee faallada noogu reeb waa inoo muuqaalka kan xiga insha allah nabad iyo caafimaad baan idinka tegay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu